allah u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyootay farxiyadii boos leydi oo ah xaaskii fanaanka dayaxdal nuushe taas oo saacadihii ugu dambeeyey xanuunsanaysay. fanaanka dayaxdal nuushe ayaa saaka xilli hore wuxuu dadweynaha soomaaliyeed ka dalbaday inay u soo duceeyaan xaaskiisa maadaama ay dareemaysay xanuun saayida. farxiyo waa la xaqiijiyey geerideeda. allah u naxariisto waxay ahayd qof muhiim u ah fanaanka. waxay sidoo kale ahayd qof caana oo aad loo wada yaqaano. fadlan aan u wada ducayno dhammaanteen in ilaahay uu ka waraabiyo naxariistiisa janno, allana qalbiga ugu qaboojiyo fannaankii sidoo kale carruurta ay ka tagtay. farxiyadii boos leydi saacadii lasoo dhaafay aad ayay u xanuunsanaysay. sidoo kale waxaa jiray maalmaha qaarkood oo xanuun ay dareemaysay oo fannaanka dadweynuhu oo ka codsanayay inay u soo duceeyaan. farxiya waxay qabtay xanuunka macaanka. sidoo kale waxaa jiray mar ay qalliin gashay oo ay ku yaraynaysay miisaankeeda, balse wakhtigeeda ayaa maanta ku ekaa. ugu dambayna waa ay geeriyootay xanuunno badan oo muddo hayay. allah u naxariisto, geeridan waxay noqotay mid degdeg ah oo dhammaan dadweynuhu ay ka wada naxeen. waa wacaal aanay dhagaha u wanaagsanayn. sidoo kale dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan waxay ku noqotay war naxdin badan oo degdeg ah. dhammaan baraha bulshada waxaa haystaa gerida farxiya the boss lady, fanaanka dayaxdal nuushe iyo sidoo kale gabadheedii hodan. aad bay naxdin u dareemayaan. ilaa iyo haddana dareenkooda ma joogo. filawaa ayayna ku noqotay arrintan. inkastoo qof waliba geerida uu ku xukuman yahay, haddana sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay kaga baxday garabkooda waxay ku noqotay dhacdo xanuun badan oo naxdin leh. allah u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyootay farxiyadii boos leydi oo ah xaaskii fanaanka dayaxdal nuushe taas oo saacadihii ugu dambeeyey xanuunsanaysay. fanaanka dayaxdal nuushe ayaa saaka xilli hore wuxuu dadweynaha soomaaliyeed ka dalbaday inay u soo duceeyaan xaaskiisa maadaama ay dareemaysay xanuun saayida. farxiyo waa la xaqiijiyey geerideeda. allah u naxariisto waxay ahayd qof muhiim u ah fanaanka. waxay sidoo kale ahayd qof caana oo aad loo wada yaqaano. fadlan aan u wada ducayno dhammaanteen in ilaahay uu ka waraabiyo naxariistiisa janno, allana qalbiga ugu qaboojiyo fannaankii sidoo kale carruurta ay ka tagtay. farxiyadii boos leydi saacadii lasoo dhaafay aad ayay u xanuunsanaysay. sidoo kale waxaa jiray maalmaha qaarkood oo xanuun ay dareemaysay oo fannaanka dadweynuhu oo ka codsanayay inay u soo duceeyaan. farxiya waxay qabtay xanuunka macaanka. sidoo kale waxaa jiray mar ay qalliin gashay oo ay ku yaraynaysay miisaankeeda, balse wakhtigeeda ayaa maanta ku ekaa. ugu dambayna waa ay geeriyootay xanuunno badan oo muddo hayay. allah u naxariisto, geeridan waxay noqotay mid degdeg ah oo dhammaan dadweynuhu ay ka wada naxeen. waa wacaal aanay dhagaha u wanaagsanayn. sidoo kale dadweynaha soomaaliyeed guud ahaan waxay ku noqotay war naxdin badan oo degdeg ah. dhammaan baraha bulshada waxaa haystaa gerida farxiya the boss lady, fanaanka dayaxdal nuushe iyo sidoo kale gabadheedii hodan. aad bay naxdin u dareemayaan. ilaa iyo haddana dareenkooda ma joogo. filawaa ayayna ku noqotay arrintan. inkastoo qof waliba geerida uu ku xukuman yahay, haddana sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay kaga baxday garabkooda waxay ku noqotay dhacdo xanuun badan oo naxdin leh.